بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد maanta waxaan qaadanaynaa addarsu athamin waa darsigii iyo casharkii sideedaad waxaan ka hadlaynaa maanta almaa-ida maa-idadu waa miiska maa-idatu dacaam waa miiska wax lagu cuno ayaa waxaa la dhahaa maa-ida xeero way noqotaa maa-ida laakiin halka waxaa loola jeedaa miis ayaa loola jeedaa milcaqatun waa malqacadda ama qaadada ayaa waxaa la dhahaa milcaqa. waxaa ku xigtaa shawka. shawka waxaa la dhahaa fargeeto, waa fargeetada ayaa waxaa la dhahaa shawka ama faradheer waxaa dhahdidba. sikiinun waa midida, sikiin midi ayaa la dhahaa, sikiinun waa midida. dabqun, dabqun waa seesarka, seesarka oo waxa weeye weelkan oo ka samaysan dhalada oo waxa weeye waxyaabaha yareer oo kale lagu rito ayaa waxaa la dhahaa seesar ama dabaq. dabqun waa seesarka. dawraq, dawraq waxa weeye dawraqun, dawraqun waxaa la odhan karaa waa garaafe, waa weel ka samaysan dhalo oo lagu shubto biyaha iyo cabitaanka ayaa waxaa la dhahaa dawraq. waa weel ka samaysan dhalo oo lagu shubto biyaha iyo cabitaanka ayaa waxaa la dhahaa dawraq. markaa soomaali ahaan waxay noqonaysaa garaafe ayay noqonaysaa, inkastoo garaafuhu caag laftiisa uu noqdo, laakiin macnaha usoo dhow ee la odhan karo waa garaafe. waa garaafo dhala ka samaysan baa la dhihi karaa dawraqun. kawbun ama kuubun waxaa dhahdidba bilfatxi wa bidami labadaba waa ku yimaadaa. kawbun ama kuubun waa koobka ama bakeeriga, labadaba u noqon karaa. finjaanun, finjaan, finjaan waxa weeye waa bakeeriga lagu shubto kafayga iyo qaxwaha iyo waxaasa waxaa la dhahaa bakeeriga yar ayaa waxaa la dhahaa finjaan. malaaxa, malaaxa maxay tahay? malaaxa waxa weeye waa tan oo lagu shubto milixda, cusbada. caagan ama birta lagu shubto cusbada ayaa waxaa la dhahaa malaaxa. inta badan maqaayadaha ayaad ku arkaysaa iyo meelaha cuntada laga cuno caag yar ama bir yar oo milixda lagu shubo oo dhakada ka daldaloola oo cusbadii aad hadhowto markaad u baahatid aad cuntadii oo kale hadday kaaga yaraato aad ku badsanaysid, weelkaa yar ee lagu rido ayaa waxaa la dhahaa cuntada milixda lagu shubo ayaa waxaa la dhahaa malaaxa. malaaxa waa milix weelka lagu shubto milix. dadka qaar baa milix dhahaa, dadka qaarna cusbay dhahaa. marka weelka milixda lagu shubto ama cusbada lagu shubto ee yar ayaa waxaa la dhahaa malaaxa. waxaa kuu timi tan mindada. mindada waa miis, mindada waa miis, waa miiskaa yar ayaa waxaa la dhahaa mindada. thalaajatun waa talaagada, thalaajatun waa talaagada. kibriitun waa taraqa ama kabriidka ayaa waxaa la dhahaa kibriit. kibriitun waa taraqa ama kabriid. lafte inaga lafteenu kabriid waan dhahnaa, waa kan oo dabka lagu shito ayaa la dhahaa kibriid. saabunun waa saabuunta. faakihatun waa miraha weeye ama khudaarta. faakihatun waa miraha. khawkun, khawk waa rifle. kumathra, kumathruhu waa cambaruudka. bazalia, bazaariyaddu, bazaariyadda weeye. bazaariyaddu waa nooc ka mid ah digirta ama cambuulada ayay ka mid tahay. marka waxaa la odhan karaa waa cambuulo waaweyn baa la dhihi karaa bazaariyaddu. waa cambuulo, cambuulada qaar ba xitaa laa la eg tahay oo aysan ka waaweyneyn.
inta badanna cagaarkaas ayay ku timaadaa. inta badanna iyadoo qasacadaysan unbaan aragnaa, iyada iyo faasuliyadaba. iyada oo miro ah ma aragno. faasuliyadda iyo basaaliyaddu waxa weeye aad bay mataqaanaay isugu soo dhow yihiin. labadoodaba waxaa la sameeyaa suuga ahaan baa loo isticmaalaa. kolley ana ma arag qof cunayo dee sidooda u cunaya. suuga ahaan ayaa loo isticmaalaa. suugo ayaa lagu dhex sameynayaa, basal iyo yaanyo iyo waxbaa lagu dhex sameynayaa. qasacadana way ku timaadaa iyadoo qasacadaysan. markaasaa waxa weeye lagu cunaa rootida iyo mataqaanaay sabaayadda iyo canjeelada iyo waxyaabahaas. qofba wuxuu doono ayuu ku cunaa. waxyaabahaasa inta badan lagu cunaa. marka basaaliyadiyo faasuliyadu labaduba iyagoo qasacadaysan bay yimaadaan. faasuliyadu inta badan iyadu way guduudan tahay. faasuliyadu wayna yaro waaweyn tahay, way ka waaweyn tahay basaaliyadda. marka waxaan malaynayaa intiina badan inaydin arag baa macquula. dad badan oo idinka ka mid ah inay arkeen waa macquul basaaliyadda iyo faasuliyadda oo ay yaqaaneen. almuhim labaduba iyagoo qasacadaysan ay yimaadaan. suuga ahaanna waa loo isticmaalaa. digirta ayayna iyo digir ama cambuulo waxaad dhahdidba ayay usoo dhow yihiin, aada ugu soo dhow yihiin. baamiya waa baamiyaha weeye, waa kan oo cuntada lagu macaanaysto, suugada ayaa lagu daraa. faasuliya waan soo sharaxnay, waa digir waaweyn baa la dhihi karaa oo qasacadaysan. baadinjaanku waxa weeye waa baanigaalka. kurumbigu waxa weeye waa kaabashka. kuusuhu isna waxa weeye waa nooc khudaarta ka mid a oo lagu macaanaysto, suugada ayuu macaaneeyaa. isaga iyo baamiyuhuba suugada ayay aada u macaaneeyaan. khadrawaadku waxa weeye waa khudaartii ayaa waxaa la dhahaa khadrawaat. waayahay, intaas waxaan u malaynayaa inaysan sharax dambe u baahnayn. faakihatun waa miraha. khawkhun waa rifle. kumathra waxa weeye waa cambaruud. basaaliya waa nooc digirta ka mid a unbaan dhihi karna, ama basaaliyadna waa la dhahaa. baamiya waa baamiye. faasuliya waa faasuliyad, ama waa nooc digirta waaweyn ka mid ah ayaa la dhihi karaa. baadinjaanku waa baanigaalka. kurumbun waa kaabash. kuuza waa kuuse, waa kan isna lagu macaanaysto khudaarta. waxaa lagu macaaneystaa suugada ayaa lagu macaaneeyaa. khadrawaadkuna waa khudaartii. bakru ninka la yidhaha yumsiku wuxuu haystaa asikiina, midi ayuu haystaa. sikiintu waa midi. sikiin iyo shawka iyo horay ayuu mataqaanaa usoo sharaxay. oo waxa weeye iyaga oo keliya ayuu hore usoo sheegay. iminkana jumle ayuu ku geliyey. waayahay, bakru ninka layihahdo yumsiku sikiina wuxuu haystaa midi ayuu haystaa. bakru ninka layihah yakulu wuu cunayaa bishawkati, wuxuu wax ku cunayaa fargeeto ayuu wax ku cunayaa. bakrun ninka layihah yashrabu wuxuu ku cabayaa, yashrabu wuu cabayaa dheh almaa biyo ayuu cabayaa. almaau biyihi fi dawraqi waxay ku jiraan garaafihi ayay ku jiraan. haadaa kani dawraqun waa garaafe faariqun oo maran aan waxba ku jirin. almilcaqatu qaadadii iyo washawkatu fargeetadii cala almindadati waxay kor saaran yihiin miiska ayay kor saaran yihiin. bakru ninka layidhaha yakulu wuu cunayaa al aruza bariis akii ayuu cunayaa. bilmilcaqati qaada ayuu ku cunayaa ama malqacad. bakru ninka la yidhaahdo yaqdacu wuu goynayaa aljubna. jubnigu waa caanaha fadhiya.
caanihii fadhiyey ayuu jarayaa bisikiini midi ayuu ku jarayaa. addajaajatu dooradii ama digaagadii fi dabqi waxay ku dhex jirtaa seesarka ayay ku dhex jirtaa. intaas ayaan kusoo koobaynaa.